casriga cusub ee dunidan aynu ku noolnahay dad badan raadinayaan sidii ay caan ku noqon lahaayeen oo dunidoo dhan looga wada aqoonsan lahaa. haddaba si ay ugu suura gasho in ay ka mid noqdaan dadka ugu caansan dunida ayaa qof waliba waxa uu la yimaadaa dariiqad isaga u gaar ah oo aan lala wadaagin. qaar ka mid ah dadkan raadinaya inay ka takoormaan dadka kale sidaasna caan ku noqdaan ayaa ku falaada jirkooda. nin u dhashay dalka Mareykanka ayaa waxa isagu uu go'aansaday si uu dadka uga duwanaado sidaasna caan uu noqdo inuu isu ekaysiiyo bisad ama mukulaal. ninkan oo hadda u eg Shambai ama Curri ayaa gabi ahaanba ku falaaday korkiisa isaga oo qorqoray ilkihiisa, jirkiisa kalena ku sameeyay waxyaabo bedela sida tattoo-ga ama xararyada sawirada kala duwan ama waxyaabo dheeraada oo uu ekaysiinaya bisada. waxaa iyaduna jirta gabadh jirkeeda ka lushay in ka badan 400 oo shay oo isugu jira xarka cangari ah, caagag iyo biro gabi ahaanba jirkeeda oo dhan bedelay. sidoo kale waxaa isaguna midabkii jirkiisa bedelay nin isagu ku xardhay jirkiisa khadad kala duwan iyo sawirro badan oo markii dambe midabkiisaba bedelay oo ka dhigay madow xadaafa. marka laga tago kuwaas jirkooda ku falaada ayaa waxaa iyaguna jira dad kale oo sameeyay waxyaabo la yaab leh oo aan horay loo arag. waxaana ka mid ah nin u dhashay dalkaasi Ingiriiska oo jirkiisa u jiidjiidaya sidii injirkii oo kale. ninkan ayaa sheegay inuu guud ahaanba jirkiisu yahay sida injirka isagoo dhowr meeleed oo jirkiisa ka mid ah marba dhan u jiiday. maqaarka hoose ee garkiisa ayuu kor u jiiday oo ku daboolay afkiisa. waxaa isaguna dalkaas Nigeria nin u dhashay uu ka kaaftoomay qasabadaha biyaha isagoo biyaha uu ku fool dhaqdo aroortii ka sii daaya afkiisa. waxaasoo idil waxaa ka daran ninka gasacada ibsida ku xereeyay afkiisa iyo kan kale ee isu yeelay labada carab. isku soo wada duubo dadkan iyagu raadinaya inay caan ka noqdaan dunida ayaa sameeya dariiqad kasta oo lagu baran karo sidaasna ay caan ugu noqon karaan xataa haddii ay ku kalifto inay bedelaan jirkooda iyo muuqooda. Cumar Cabdi Afey, Universal TV, Oslo, Norway.